ilaaliya ilaa maxkamadda cadaaladdu waxay ka bilaabatay hoos idinkeedi ka bilaabata shacabka Soomaaliyeed haddaad doonaysaan inaad harataan niyaddooda iyo taageeradooda waxaa loo baahan yahay inaad cadaalad ku dhaqdaan inaad cadaalad ku samaysaan waxaa ku xiga oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ka filaya inaad u naxariisataan inaad gargaartaan kooda tabarta yar ambalaasadeen arkaynay haddaad arkataan qof dhibaataysan inaynayna gudbin oo horey ka qaataan qof inaad horey ka qaataan qof xanuunsan inaad horey ka qaad haddaad aragtaan kuk waayeel oo dhaqaaqila adkicisa waxa weeye farqiga noo dhexeeya annaga iyo kuwa oo ilaahay iimaanka ka qaaday oo diinta ah oo naxariista lahayn noo dhex maxaa yeelay annagu naxariisanno annagu waa inaan u naxariisanno waa inaan ka nabadooda iyo noloshooda ka shaqeyn meesha iyagu ummadeenna Soomaaliyeed marka naxariista ha lagu dadaalo in la iska caabiyo cadowga cadowga la iska karaa adigoo shacabkii haysta hadday shacabka ku taageerayaan ay la wixii meesha waa ka adkaanaynaa cadowga waa ka adkaanaynaa arrinta saddexaad oo muhiim tii gudaha waa sheegay ciidanka booliiska dhexdiisa laga oo qofka la dalacsiinayo lagu dalacsiiyo aqoontiisa kartidiisa wadaniyadiisa iyo xirfadiisa lagu dalacsiiyo oo aan lagu dalacsiinin qof siyaasi ah warqad soo qoray aan lagu dalacsiinin tan labaad inaad kalsooni ka raadisaan shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay iyaga weeye waxaan difaacayno iyaga weeye waxaan rabnaa inaan difaacno tan saddexaad iskaashiga caalamka waxaa laga rabaa jaanka iyo saraakiishiisu inay xoogga saaraan inay caalamka la macaamilaan oo heshiisya la soo gaaraan oo keeni naga fakada halkan ay dib noogu soo celin karaan meel kasta ay joogaan adduunka waxaa la yidhahdaa Interpol ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed waxaa kula dardaarmaya wiilashaan waa wiilasheennii waad arkaysaan maanta waxay noo soo bandhigeen waad maqlayseen inay naftooda u hurayaan difaaca dalkooda iyo dagaalkeenna inay u hurayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan weydiisanaynaa inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida booliiska iyo xoogga iyo nabad sugidda iyo taliska maxaan ku raahdaa asluubta kulligood inay siiyaan oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan maxaa yeelay maalin walba waa noo dhimanaya oo naftooda noo haligaya waxaa la doonayaa marka annagana inaan garab ku siino si hawshooda aan ugu fududeen dowlad ahaan oo anigu aan madaxweyne ugu ahay waxaa badan naga ah muhiimaddeena koowaad inaan siinayno ciidamada qalabka sida guud ahaan wax kasta ay nagu qaadato inaan xuquuqdooda u keenayno wax kasta ay nagu qaadato inaan tayo siinayno tayadooda kor u qaadayno wax kasta ay nagu qaadato inaan training iyo tababarra siinayno hadduu ilaah yidhaahdo si ay ula tartamaan caalamka intiisa kale insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu